masaladii xalay ee ku saabsanayd heesta aynu khulaasayno kadibna aynu ka soconno. masalada heesta la yidhaahdo ama waxaan maansada la yidhaahdo waa magac guud oo shay bannaan iyo mid aan bannaanaynba ay soo hoosgalaan. culamada muslimiintu khaasatan salafu saalix quruntii khayrka badnayd culimmadiisii saddex bay u qaybiyaan waxaan maansada ama heesta la yidhaahdo: mid bannaan iyo mid aan bannaanayn kaan bannaanayn bay laba qaybood ka dhigaan, marka saddex waaxood buu noqonaya. qaybta koobaad waa taxalay inuu ka hadalay oo waxaan loo yaqaano maansa hawleedku waa shay bannaan. maansa hawleed baa la yidhaahdaa marka beerta la falayo xoogow tixi bay qaadaan oo isku dhiirageliyaan oo isku caraabiyaan dadka beerta falaya. dadka guryaha dhisayoo kale xoogow maansay qaadaan oo markaa doonahayaan inay isku caraabiyaan oo ka howlgalaan. ninka cidda iyo geela waraabsanaya sidaasoo kale, gabadha masagada tumanaysa, ninka hawl qabanaya, qolyaha mujaahidiinta ah markay is caraabinayaan xoogo bay qac ka siiyaan. maansadaas loo yaqaana maansa hawleedka jiijiid badan ma laha, laxan ma laha, miisig ma laha, xumaan dadka looguma yeedhayo, waa shay iska bannaan cinda ahlilcilm. xalay waxaynu soo marray kalxudaa'i wannasbi, taas marka waxaa loo yaqaanaa ghina bannaan. ruuxa bini aadamka fitradiisa lagu ciyaarinna wuu kala garanayaa waxa u dhexeeya maansa hawleed iyo heesta la yaqaanay caadiga ee hebel waa fannaan, waa heesaale leh. ninka hadda geela shubanaya laba sac laga yaaba ama intuu duhurkii fadhiisto ceelkiisu intaa u shubahay in gabalka ugu dhaco, intaana maansa uu tirinhayo la odhan maayo waa heesaa. geel jiro miskiin oo geeliisa waraabsanayn baa loo arkaa. ninkii saaka aroortii ku kalahay beere intaa falhayay ee gabalka ugu dhacay intaana heesahaya caraabinaya dadka beerta jabinaya looma arko inuu yahay heesaa iyo fannaan. marka waxa maansa hawleedka loo yaqaan ee carabna u yaqaanin xudaa'ul acraab ama ghinaa'ul acraab la odhan jiray, salafkuna ka hadleen, waa bannaaya hadduu ka badbaado edabdarra in layskugu yeedho ama axad bini aadan lagu dulmo lagu caayo. nooca labaad asagu waa xaaraan, laban waa qaybsamaa. waa ghinaha loo yaqaano waa maansada heesta la yidhaahdo ee leh laxanka, ee leh isjejebinta, ee leh iswalaaqidda iyo edabdarridaad garanaysaa. isqaawin warkeeba jooji. ghinaha noocaasa asagu waa xaaraan biijmaaci culamaa'i lumma. waxa hadda heesta u taqaanaan ee fannaaniinta aad tidhaahdaan iyo hebel waa fannaan waa heesaa aad tidhahdaan hawshay ku howlan yihiin waa xaaraan, waana masale ijmaaciya, khilaafna ma laha. wadaad dambo asagu iska soo rucleeyo xiiqsan oo hawl meel kaga go'an tahay ha ku lugi. alimaam cumar bn cabdilcasiis yaa ijmaaca guuriyey, imaam maalik baa soo guuriyey, shaafici baa guuriyey, axmed baa guuriyey qabla an yukhlaqa ibnu xasm iyo khayrkii intaan la abuurin, walaa ibnu طaahir alqaysaraani الsuufi almulxid aan la abuurin, ayaa a'immatu ahli اlcilmi guuriyeen oo uu ka mid yahay alkhaliifatu الraashid kow ka yahay maalik imaam ahli sunna, shaafici oo la yaqaano culummada ugu adag in ijmac guuriya inuu yahay oo weliba ku naqdiya dadka ijmaaca guuriya ku naqdiya. axmed baa guuriyey, 31 caalim baa ijmac soo guuriyey, 31 caalim baa ijmac soo guuriyey. marka wadaad dambe warkiisu iska yahay khalad galay ama ijtihaado oo gafay laguma lugo. masalada marka masale muran lama ah. heesta laxan kale ee isjebinta leh ee edabdarrada wadata ee nin weyn dhaqankii aan ahayn ee lagu yaqaan dadka fasaqada ah caanka u noqotay heestaas waa hees xaaraan. waa in bannaanka laga maro.
ninka sameeyana waa faasiq markaati ma galo kii kaag dhawaa wixii laga shaqaystana waa xaaraan laguma xajiyi karo bal waa laguna cadaab mudanaya qaybta labaad waa qaybta loo yaqaan oo qaybta xaaraanta ka mid ah haddii si guud loo fiirino waa qaybta saddexaad alghinaa as-suufi ka la yiraahdo alghinaa as-suufi heesta iyo maansada iyo xatrada iyo nasrada ay qaadaan qolyaha dariiqooyinka ah ee durbaanaha garaacda iyo kuwan hadda alxaq balaaza loo fadhiyo ilaa yahay tu alifka taadka wax ka dhacama suma taqaana midda ayaduna waa xaaraan waliba tahorayada ka liidata ninka fanaanka muqanniga ah ee heesaaga ah inuu xataa khaldan yahay isoo yahay wuxuu inaysan fiicina waa isoo yahay nafta naga baratay waa balwad waa ku soo korray xogo mushaaru ka raadinaya laakiin kuwan aafadoodu waxa weeye shay macsiya ah bay ilaahay ugu dhawaanayaan qurbo iyo diin iyo cibaado iyo la dhawaashay u arkaan ولذلك بعض علماء الأمة waxay gaadhsiiyeen ninka nasrada iyo xatarada iyo ghinaaga suufiga ah qurbo iyo la dhawaasho u haysta waa gaal bay yiraahdeen wadaad xanafiga kitaab ka qoray oo hataa aan shuqul ku lahayn salafiye iyo sunniye midnaba ma turida oo ku takfiiriyay قرطبي أبو العباس صاحب المفهوم وكدوادي كشف القناع كتاب سلا يراده في مسألة السماع إنه تكفيرية حامة حول تكفيرهم لكن موسى تصريحين أبو حامد الغزالي نين ولالكيئة وأحمد بن محمد الغزالي الأورنجري كتاب وقراءة سوق الصوفية وحوليه إنك إذا حضرت مبنى وقال وفي رسالة نين وحكم إنك برنايستي الدين كدك وقال أصلا حورنيك يعيد هذا وقال وحان مركا واحد دنبو لقول له قاي شافعي مركا هذا كهالليان فقه شافعي كتبت شرح ايان منهاجك iyo kutubta fiqiga shaafiiciga ninka ugu hadal xun ugu lita waa Ghazali imaamka arteen cadiimka ah ee usulka imtixaanka ku ah meel walba soo taabtay markuu baabkan marayo waa adcafu an-nas kalaman fi hadha al-bab lianna maxaa yasaa ku fidnaysna saa ku fidnaysa ibn Hajar muxuu yiri wadaadku wuxuu ku fidnaysan yahay fatwa laga ma weydiiyo xageebo ka qaatay xadiidkii markuu sharxayay kadaba Abu Sanabil ibn Ba'kik xadiidka ka fiiriya fi al-Baariga wadaad asagoo ribada cuna sheekhu bil ribada ka warada tirada muxuu ku leeyahay la baas la baas nolosha baa gashay la baas mid asagoo haweenka meerxad ku meheriyo meelahaas ka burdhaqlaysta haddaad tirada masaafo iyo islaanan weeylahayn sheekhu bal ka waran muxuu ku leeyahay mas'ala khilaafi laakiin anigu waa sameeyay iska wada ku leeyahay wadaadku wuxuu ku aafaysan yahay waa la iska ilaaliyaa اللهم إن الدليل عض يورعض كو أرقتها ده مركا الناس وتاجر مويين مسائل كاجتهاد كودات كو حكوا أفيسية ولا قفوا هذا مسألة مركا الغناء الصوفي قربئية لو دواش لقى دكتي اللحن كله الدربان كله المرقان كله لقوا شط بوده تقارنان واجا أنه أن حترين شري أن سمودي شردان لحوينا إن إلهي اكتسحوا أن نقول هاي وإذا هذا والنور ونقول أنا كم مقل يا هبينك جمعها يا هبينك أربعة أبو حقسم نقدر إن نحطرينه هديك أرورتاس كتاب يدين آخر ما هي عربي ذو نوع آخر جري نحوي يصرف يقول نوع آخرني هبينك جمعها وين نحطرين إنسان دريامة إنه قبلهم مش حراض هيان يدر موسك يفوح صدى ومرها أيوه واجا أكتيسة بانكو كلا دريرينا هذا يساعد إنسان دحين صبت صوص عطا 10 ما jiro habeenka arbacadana sidaas oo kale yahay ninka habeenka marka la xatareenhay ee baasha la wado aan marqaaminan dhicinan judboonin muxuu arkaa munaafiq faasiq nin qalbigiisu ingegan yahay qaasiyatan qulubuhum mujrim buu soo arkaa ilaa waagi dambe anu ma arag laakiin nin arkay baa iga sheekeeyay wuxuu wadaad ba markay naftu qabatay oo uu jidboon waayay iyo maalinka habeenkii dambe ayadoo xadareen istuuray kashkaashkii lagu fadhiyay iyo meeshii la fadhiyay geed weyn oo dogoba lagu celiyay kashkaashka iyo bartaa la helay dhiigii baa faniinay cabaad buu afka furtay isbitaal oo la cararay hadduu jidbaysan iyo marqaansay waxa ku dhacay muusan gartayna moogta waa nin isdanaasacay bal istuur oo iska dhig nin marqaansan
marka midka asagu xaraamnimo waxa u dheer waa xaraan diin laga dhigtay بعض أهل العلم لا يحكوا تكفيريا با كهوري فنانادو يا فسقادو قادانا ودقن فسقي مجرمين اسنوا دين لا لبدا نوع با علماء اجماع بي سو غوريين انه حاران yahay كوسي ديران ما كتب بدن با laga qoray carakawa معاصرين كتب بدن bay ka qoreen salaf kutub badan bay ka qoreen xagga fuqahada waa weyn ninka ugu horeeyay masalada ka hadlay kitabka qoray Shaafici way Abu Tayyib al-Tabari أبو إسحاق الشيرازي شيخيسي نينكي الزمن كيسي اللي يديه حلقة يسوى حافريسن جري 500 فقيه من شتى المذاهب في كل جمعة وحولها حلقة للمناظرة واحد انت من زنوب ننت دعي وعلمي كوب حل ديراضي وحر كعي عركواء واقدر مركو الدقوبة سقاشن دور بكل انتي oo toddobaatan meelaha soo gaaray ee wuxuu wixii munaadara waxaan u wakiishay ardayga Abu Ishaq al-Shirazi ninkaas hawsha qaban jiray barka wadaadka kitaabku ka qor waa madbuuc risaalada akhriya asaga iskale Shaafiiciyadu raga ugu cadcad ee masaladan tafsiiliyay ee fariisiyay way waa dhaqan diin la'aan ya faasiqnimo way dhaantadu xagee galaysaa dhaantada inay ilay xagee gali وقيبتي حاران تايد بإجماع المسلمين دين لآن يقال لموي ولبا إن ليد هذا نينك أن لا إيمان المسلم معه والدين لآن يقال لمو إن لغو يراد نينك دانتين واي ووعل وهذا ويد ميد وقادين وودادا يا ميشن كتغي اسا يشكي جيجيغو تغي وحوري إن إليو باشان آفديد أمد دقن كغا دميسي جوج ودين لان ما بنانا دقنka jooji buu ku yiri wuxuu kaale yaa tahay wuxuu Soomaali baan war Soomaali ma raba yaa tahay ogaadeen baan ahay ogaadeenna waa tahay dhaantana waa didi wicil baatay garac ogaadeen ma tid buuri wanin dhan sheekhu saa ku leeyahay asaga ay iga sheekeeyo ii sheegay marka aafadu halkaas ay gaadhay sidii macsiyada ahaa ee dambiga ahaa ee kabiirada ahaa ee bacdu ahli cilmi ba hadii qurba laga dhigtay kugu takfiirinayeen wuxuu leeyahay ninkii la iman waaya ama inkira qoonsado waa garac nasabkiisa duran yahay oo qadfi baasha li'aan waxa ka bilaaban haya asagii ba dadkii qadfay wuxuu ku arkay inaad ahayn ba adan reerkaba u dhalanin balaayaata labada qaybood way yaan la isku khaldin hees hawleed maansa hawleed oo lagu qabsado oo si jabin lahayn oo laxan lahayn oo Allah iyo balaayadan imtixaanka ah ee muusigada wadata ee laxanka wadata aafada wadata yaan la isku qasi laba kala baabo kala duwan way hawshaasi marka intaas ayaan kaga tagi lahaa kutubtu way badan yihiin ragiina dhalinyarada hal kitaab akhriya araka waa way kitaabka ila roon xagga jamciga iyo xagga baxthiga iyo shubahaadka ka jawaabidooda iyo naqliga ijmaaca iyo tahriirinta masaladaba wadaadka Nidiyab ibn Sa'd al-Ghamidi la yiraahdo kitaabkiisa way الريح القاصف على أهل الغناء والمعازف الريح القاصف على أهل الغناء والمعازف وكتاب شن بقوله بيجان كبرني بل ولا بقول يزيد أفر بقول يزيد تنبيج آخرية وكتاب دقيقة علماء الحل يسنوا لا وين أي تقريدية أنت آخرية ابن باز بكمله مركا الريح القاصف على أهل الغناء والمعازف بلا جديع بكون نقديي وحكون نقدية قرضاوي وحكون نقدية الدكتور سالم الثقفي يعني ونقد علمه ولي إذا بيسن علمنا كل سنة تقريبا إلى 8 رسالة لقوا قروانا يا ووين لكن كي أسرع إلى في عام حق مادة أصولي جاي نقد انت نكو بعضنا دكتور عبد الله عبد الله موسى رمضان كتاب كيسة الرد على الجذع والقرضاوي في مسألة الغناء والمعازف آخرية أصغنا ومجلة كوزن وإلى لحب قلوب بيجة مركا مسألة يعني لقوا خلطامي haddii ay baashi heesta ahay haweenba soo galaan ama aflagaadi ay soo gasho ama xumaan dadka loogu yeedhayay iyo zina iyo tacriid iyo fawaaxish iyo cishq iyo beenbeen wixii lagu sheegay baqtiga ay ummadda u horseedayay aafada iyo dhaqan xumada ay meesha timaadana muranba ma laha inay xaaraanta muranba taasi ma laha marka inta aan ku gaabiyo kitaabka akhriya marka kitaabka dhamaysan haday wax shubaa soo hadho markaas aynu isku imanaynaa